بسم الله الرحمن الرحيم. واحد بلاوي مركان درتان سيدان ابلكيشن او اسمه Autoplay Media Studio. هذا لا ساعات 10 كوري waxaa wax leeyahay si loo install oo computer lagu shubo Autoplay Media Studio waa application kan hadda aan soo kicino Autoplay soo shaqeynaa arkayna markaan soo furno hore noogu saaray daaqadana create new project open receipt project install kan hadda waxaan rabnaa application cusub design gareyno ka taxalana create new project okay marka waxaan soo saaray daaqadan wuxuu leeyahay templates kan yaaran midkood ka dooro marka hadda dadka ka qaata ka dooranaysa hadda kan ku doorto magaca uu siinayo bixinaya haleeyaysa product ka dhaxaya okay hadda fiirisin qaabkan uu loogu soo bandhigay hadda markaan rankayno application kan waa application diyaarsan marka oo kuwan marka sample soo saaraya ana hadda waxaan isku daynaa marka mid oo soo develop gareysano ka dhaxaya meesha file aan iyo ka dhaxaya view marka aad taxalee black marka aan magaca ku qorno haleeyay tijaabo la baxayo okay daaqadan baa soo baxaysa marka saan soo baxdo hadda isku dayaa rangareeyo waa meel blank waa mid banaan wax baan ku jira marka ana liiga baahan inaa meeshan form kan buuxiyo oo hadda waxaan u baahnaa aan ku soo daro inta guda gala xaraadina si kooban ku soo raaxo buttons iyo images iyo labels si waxa la soo geliyo meesha ku jiraan marka hadaan galno qaybtan hadda u jeedaan halkan way qaybta ugu dhex jirtaa si aragtaan waa qaybtan kan kooda waxa lahaa magaciisa button kan kooda arkaysan kan kooda waxa la magaciisa button waa button isla mid waxa click la siiyo kan kooda mid kale waxa weeye markaas waa images marka waxa weeye sawirro soo gelinaysin si waxa lahaa magaciisa waa images marka sawirro soo gelinaysin ka saddexaadna waa labels waa awaanadii waxaas loo isticmaalaa badanaa hadda si tusaale oo kale hadda page wada iyo dialogs waxa la magaceeyo labels baa lahaa waxa la magaciisa labels baa la marka options marka aad u fara badan yihiin kan oo kale kamid kan waa video kan arkaysan ku waa maqalkii halkan waa button kala soo nooc kale marka hadda nishi button kan iyo button kan labada button isku fiirsan farqi u dhaxeeya marka waa arki doonaa farqigaas oo noqonaya hadda tusaale ku soo qaadano labada button farqi u dhaxeeya kan hadda taabto dartan click soo siiyo waxay soo baxaysaa midkan oo click oo button macaa laakiin marka kan taabto waxa sidii options tira badan hadda button kan oo u baahan colorkiisa waxa la soo inaan kala doorto intaas option uu siinayaa marka option oo ma qadon ka dadka class ka dooranaya okay hadda isku sii fiirisin kan qoraal baa dhaxda ugu qoran laakiin kan malaha kan aad ku qoranayo qoraalka ma ka baahatin labada waa fahamnay marka kan waxa weeye image marka sawir wax soo gelinaysa hadda tusaale kale sawir isku soo geli oo sawirada qaabisha ku soo gelinaysa kaasoo kala soo gashanaysa sawirka waxa kala soo gelinaya labels kan meesha raxiyo oo ka duwan uga dhig labels kala kadib marka aad bedeshin waxa la click sauce kadib halkan new label ka tagto waxa ku bedeshaa image 1 okay hadda waxa ku qornaa meesha image 1 marka gawan buu noqonayaa hadda button ka soo geliyo oo soo dalto button ka sidoo kale waxa sameynaysaa magac ku dhulqo dhulkii waxa ka qortaa meesha textiga halkan okay hadda soo qoray halkan markaas iska soo ku dhulay بديه كيلنا وقنا سونا مركان توسي بطن كل wuxuu ku fiican soo ka horfuudiyay kan
yiri asal markaas la bishii sidoo kale kaliya tirtir ta iyo halkaas aan ku isku shaqeeyo labada batan qabanayaan hadda wax farqo weyn u dhaxay ma jiraan labada batan laakiin waxay ku leeyihiin kaliya design ka qaab yahay kaliya هذا رنجريو مركز الابلكيشن كرنجريسي waxaad tagaysaa meeshaan qaybtaan ay ku qoran tahay computer ku soo leeyahay magaca xalaha preview la tan xigtana waxa weeye hadda waa arki doonaa waa marka application ka dhameysid baa build leedahay marka dhameysid baa build leedahay application caadi ka dhameysid lagu tarkayaa okay ya taaniya preview ama wax taan ka tii furan option ah inaad taabto midkaan ku qoran tahay F5 aad taan kara option kale F5 inaad taabto way furan tahay F5 computer kan tahay marka ayaan taabanay click isniya wax la soo inta ka dhameeyo okay waxaan ku qortay soo geliyo sawirka watay levelkii buttonkii iyo buttonka kale فرق كل واحد بتنون حي مت كان دوق ملح مركز أوتوميزي كان أضبوطه مرة كان من ملحن أوكي هذا حرنا مش على كوسو أبليكيشنز أنت عندك حالة صفر كون عندك بس كل الجريمة كون حالة ديليت أوكي بتنس بعد يرسل مركز ساسا مقعد وقرتي الريدر مركز وقرتي ومركز دي كان بكريك سوسية هذا كان قرأ كبرنا سامع لنا شريت وحنا على هذا الشيء مثلا كان قد روح على سوق اليو أبليكيشن مكوشو أنت مش مكوبل على له أخير حواء شقين وفار لكن أبليكيشن مكوشو قلنا على البريد بتاعه كده على يكون بس تنكشونه على يكون أكشن كدور كقال حق ساعة رن program كده على البرنس نرجع كده حسوق على الساعة مشي كويالي سبب كده كان عدد كبير أوكي كده على أوكي كل ما أساس أوصل بر لما تقول البروجرام فيروس كده على هاي فوكس كله سلام عنده وصل بر في لسه سوق كويس حد إلا أنت أدو باهي على تحي أبليكيشن مربوح أبليكيشن كسودرتي كان أعبر كذا وكردية مربوح سيسكو سيادية سيسكو مربوح وكردية أوكي مربوح هذا تجمع أبليكيشن شغالين كله بريفيو مكان هذا تابت على الريدر وإنه مكان أوتوماتيكلي يسوق بتاع الانستليشن كسيدا كليك على الريدر روح كسو ساري ما يعرف ثاني كل سوق راسين صار الربع كسر كان مرة عندك كسر قال ده في سيجار تسوي كله ما يمشي ولا يسوي لها ما دخل الشارع وكوجا في سي أوكي أنا قد من المفروض كا قابل أسأل الصورة ده بعد نسوي جلسين عندي ومثل ما تعرفين دي كل نسوي بعد أو كمبيوتر كامش كلا صورة كسوق هذا سوق الشمر ما كان بنسوي سوق كذي بس هو بعد سوق شو هل كان وانا ذي مكان مقعد قرر شو كل ميشان كان ليبل كسوق ورنسا هل مركا كان لو كليكسي حقوقتها application كسائل إنها حق تصل لسه أقرأ لا سنة سكرين أما هل كان وسائل بدنا شيء أدوات يرجع شيء كده نحن نبدأ خلي التجارب شغالة أكون بس application كاسة عادية محقولة كشو مركا application دي برنامج قابل ولا وصوكرة هذا ربطنا الناس كده شيء background عندهم بوميض كاي حاسمين لسه هل كان نفتح كذا حل مش عبنا بالكليك كليك مركزي صح عند رتا باكورد كتاب كذا كذا use custom city
kadibna waxaa leedahay marka waxa rabtaa solid color mise gradient waa laba color isku jira mise image sawir hadaa image door kadibna browse sawir soo qaadi tusaale hadii sawirkan oo kale okay dada okay do sawirkaas meesha qabsanaya waa la qabtaa sawirkaas la qabsanaya marka dad baatana color dhigtay sidoo kale ka bedel solid color colorka sax soo qaado okay waa filayaa in application-kan xog badan aad macluumaad badan aad ka faa'iidi doontaan ka heli doontaan hadda waxaad u baahan tihiin dheeraad adeegsadaan waxaad tagtaa hadda qaybtan help kadibna autoplay studio qaybtan conceptyo badan baa ku jira meeshaan ka faa'iidi doontaa qaybtan oo kale xoog ay qaban karaan intaas waxyaalood baa ku jira marka midda kalena aan ka ilaa baalkan wuxuu leeyahay qayb coding oo code wax lagu soo gelin karo tusaale ahaan oo kale buttonkan share doorto kale inaad xukun ugu jirin question ka tagad waxaa dhigi karaa script waa dhigi karaa marka waxaan sameyn karnaa waan nadaado Mr. Backus noo soo xiriirna marka dialogue message waxaan soo dhigtaa message string kadibna waxaa qortaa marka welcome waxaa ka wadaa waa xiriirkan kore midkan kore wuu kale leeyahay kadibna messagekan qoran kadibna kusoo xiriya barnaamijka halaya okay marka tamam la dabal aan rangareeyo hadda markaa sheeraysa aad taabto wuxuu soo qoraa kusilow oo pop-up message box markaas kii kor maxaa ku qoran marka saarkiisa welcome halkan lagu soo dhigay kusilow autoplay qaybta koodka waa leeyahay marka hadda koodka kaliya faa'iidaysanaysid oo kusii kororsanaysid duwa aqoon kale kuu sii marka hadda waxaa sameynaa marka application-kii build oo ah design application aad u shaqeyn karo waxaa loo dhan qaybtan ay ku qoran tahay build material marka build waxaa leeyahay continue marka waxay cd baa ka dhigaysaa hada folder caadiga web email baa ka dhigaysaa marka hada folderkaas aad dooranaysaa kadib waxaa leeyahay next marka wuxuu ku sheegayaa meesha output folder ka noqonayo waa mi document autoplay studio la fiirsan waa document iska ko autoplay studio ilaa folderkii magaciisa waa tijaabo uu ku wareego halkaa magacaan bedelaya marka waxaan ka dhiganayaa marka waxaan bedelaya marka tijaabo baan ka dhiganaya waxaa laga build aerosin ku dhameynayo aerosuya hadda waxay ku xirantaa adigu marka application-ka hadba intuu la egyahay size-kiisa okay halkan data ka qaadan wuxuu leeyahay output folder kuu soo bandhigo kana waxaa laga soo kale kana marka application-ka kana soo shaqeynaya magaca kusoo qorta wajida waxaa tijaabo marka data batrix aan siiyo application-ka caadi soo wax aan autoplay-ga ku jirin gudaha ku jirin kusoo autoplay halkan qoraalkii ku qoran halkan waa sawirkayga yaala halkan waa application-ga aan soo geliyay markaan tusiyay feelashan oo wataa marka waxaa muhiim application kaligiis ha qaadan feelashan la qaad marka daartana soo qaad waxaad tagaysaa qaybtan ku laabo wuxuu ku jiraa danitso waa document-ga autoplay waxaa doortaa output kadibna waxaa laga tijaabo waa kana folderka dhan la soo qaado oo copy garay meesha maanta la geyso marka wixii macluumaada fadlan nagu reeb blogana oo ah saxiixdad.blogspot.com waa blogan nagala soo xiriira pageka facebook leeyahay la saaro oo ah isaguna midkaan hoose waa saxiixdad facebook.com www.facebook.com/saxiixdad